gaarsiinay waxa weeyaan 8 qufuco bariisa 8 daqiiqa 8 caagadood oo saliida ayaanu qalya ka soo gaarsiinay insha Allah bisha afraad aad iyo aad ayay dadka gaadiidkii iyo dhaamintii iyo wixii dadka ceelkay maanta joogaan haddana gargaar ilaahay bay simantahay ilaahay xaqiisa noo gargaaro hay'aduna halkan waxa noo keentay taakulo عشان أفرتن دقيقة يا أفرتن بريسة يسديتن سليدة وما أنت هالك اللي جاي بدومي مركا همبليو يا هدية اللي بكون سين يا أبارتي أبارتي من كاسر وعن هاي مركا يا آدي أنا نكون وهم بلي أبارتو الديلا بينكر لكن سآدي أيوب العرنت واحد اللي يكتب حولها لما نسوي دينهم عيال كادر كلا بربا كهرمك كلا بربا هذا يربا كيما مركا هذا دكتور قاعد كي وقادر هذا بعد المكت آدي مكت وضيعا ودي مركا قاعد كي وحين لغتين عيش اللي بيجيو نحريستنا وما تو عيرين ما يشني يربا يحوم مركا إن شاء الله بإذن الله حق ربنا وانا إلهي ونقصنا نحريسنا هذا قاعد كنتنا إلهي يا سايق خير كلا الله كسيو ساسن كهم بلينا السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلهي بارك مهدل إلهي بانو مهدنا غينا المركز حكته وحنا مهدنا غينا دانش مسلم وراشين كسور ديبتي وين سوق جرسيسي تأكل السومالي لان راشين كاسو تريد ستاي بقول كيش أو كنتون برا يكونتون بريسة يبغول عقدود بقول برا يبغول بريسة يبغول عقدود راشين كاسو للصين يبغول قويس أو dadka iska deejirsanaya abaaru tabaarayeen دوم هذا غنى إلى ياك تستايسيو وحسوا ديبي وحسوا قاعدين يسوق عرسيبة هذا الكوسكا دين تسكو كومي هاي سمي قاب تروح ويا محل حمل كد ماذا نعرف وين قبل كسنة كترسل ضد كنا ديرها وحسية وحويا وحملنا هاي وقت ديرها يبغى نبري أنا إلهي نسيو من واسعة وهدي روم بسيو واحد بلاد بحياة كم مطران عيد ما جالس مطران بحياة بحياة بعدك حجارة لكن وحملنا ده واحد تروي أنا يبغى لك هير يبغى لك كيش قاطي يوي كرسان المدة كرسان هير كرسات كيرول بدين دور هاي سنة مركب وحملنا هاي ديرها هيدا كتساي سيو وحيد دم بين هدي بدك هذي هاي دي هتسا نقور هاي سندينا نقور هيو أيان عطسنا دي والسلام عليكم ورحمة الله قدوميات ولد حملك وحن هالكان لوغا ما هدايا دانش مسلم هذا اللي يلاحظه واي نوغا سو قاداي عاومada هذا تاكلو waxay ugu tala gashay raashinkan boqolka kiish daqiiqda iyo bariiska iyo saliidda boqol qoys iyadoo jecelahay inay nooga badiyaan waliba intaasoo ay nooga sii badiyaan oo dadku aanu boqol ahayn ilaa 500 oo qoys meesha taalo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qolada noo sidii ilaa halka noo soo qaaday ee noogu keentay tuulada xamilka iyo qolada guud ahaan markii hore soo dhiibtay qolad abaaraha macnaha dadka saameeyeen u soo dhiibay mucaawinada inta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan si jecel lahay inay noo soo kordhiyaan ugu ka badan yahay dadku inta boqol qoys uu ka badan yahay deegaanka xamilku ilaa 500 qoys buu gaadhaya
وبالله التوفيق وأنا سوق أرسلني دون نهاية هاي تاكله معاونين كأبارها halkan waxaanu wax ku siinay 100 qoys oo ah dadkii abaaruhu tabaaleeyeen waxaanu siinay bariis daqiiq iyo saliid 100 qoys runtii waa dad abaaruhu saameeyeen una baahan caawimooyin tan dheer dadka meesha yaala way ka badan yihiin maanta waxaanu qaybinaynaa ilaa 5 tuulo oo deegaankan ceelaf weyn hoos yimaada oo xamilka qaliyaqa beerweyso garab cad iyo dhalin yaxya insha Allah inka badan wixii karaanka yagaana oo la qaban doonaa assalaamu alaykum inta marka dulbeetiyay إلهي بانو دي برينا marka hore Ilaahay baa loo cawdaado waxa weeyaan abaaraha waxa weeyaan dalka dib waxa ka jirta abaar kulul oo waxa weeyaan xoolaha dalkii oo xaalufay xoolihiisa waxa weeyaan caatooday oo daadanaya waxa weeyaan biyo la'aan adilada roobkii dib u dhacay waxa weeyaan way uu badan yahay waxa weeyaan marka waxa weeyaan taas ayaa saameysay marka waxa weeyaan waxaanu diinka codsanaynaa muslimiinta wixii muslimiina hadii waxa weeyaan inay wixii taakulaayeen ugu taakulayaan waayo dadkii waxa weeyaan xoolihii way caatoodeen waxa weeyaan way fadhiisteen cudurku xaalufay roobka dib u dhacay biyihii way yareedeen waxa weeyaan ceelashii biyaha laga waayay marka taa la ajigay dadkii waxa weeyaan dadku waa noole ku nool waxa weeyaan noolihii markii uu wixii ku بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaameynaa annaga oo joogna waxaan ku sugannahay deegaanka Beerweeso ee tuulada iyo deegaanka oo ka tirsan degmada Ceelafweyn oo 60 kiiloomitir qorax ka soo baxa kaga beegan degmada Ceelafweyn waana gobolka Sanaag degmada Ceelafweyn waxa maanta soo gaarsiisay hay'adda samafalka ee taakula Soomaaliland Community Danish Age ayaa waxayna soo gaarsiisay deeq raashina Danish Muslim way ka keentay hay'adda Islaamiga oo fadhigeedu yahay Denmark ayaa soo bixisay raashinkaas oo dhan 200 oo qoys oo aan ku qaybinayno tuulada Beerweeso deegaanka Beerweeso waxaan uga mahad celinaynaa hay'adda Islaamiga ee Danish Age Islaami ee soo bixisay iyo hay'adda taakula Soomaaliland Community oo na soo gaarsiisay oo dadka soo gaarsiisay intaba mahad baan u celinaynaa waxaan kale u mahad celinaynaa إلهي بقى مهدلي مدحوينا الصومالي لأن أحمد محمد محمود سيلايو مدحوينا ربع داقنا وهم هاد علينا مقع وحنو كلهم هاد إيه حكومة دي سبب وأيهم حنو هاد علينا ليش كمان هاد عليو وأنا وحنا اللي مصابسين وضيّا ولا دغدغاشيا markay hadlayaan dawladda amaanaya sida ay dalkeeda iyo dadkeeda xukuumadda iyo madaxweynuhu ay ugu gargaarayaan oo gacan deeqsinimo ugu qaadayaan oo madaxweynuhu baaqa ugu diray beesha caalamka ilaa jaamacatul arab ilaa midowga Yurub ilaa midowga Afrika ugu diray ay dadka abaaruhu ay aafayeen hal laga geysto gacan deeqsinimo oo taa deeqdina soo gaadhay madaxweynaha sidaasaan ugu hambalyeynaya xukuumaddiisuna wax qabadka ay harimarinayso waxaan kale oo mahad ballaaran iyo guul haynaya cidda ka soo shaqaysay ee shaqaalaha hay'adda taakulo
oo uu ka koob yahay gudoomiyaha taakulo Cumar Jaamac Faarax oo haddana insha Allah aanu soo dooran doono anigu waa ku darayaa ninka dalka iyo dadka wax gasbada baanu dooranaynaa kuwa yar yar oo diyaasbara ah oo muraayadaha badalacdo aan gacalka naafoobay ogan iyo dadka baaru naafayeen baa doorasho doonay la simi mayno isagaanu dooranaynaa waayo dadka iyo dalku wax gashada intaana odayga ay u gaartahay gudoomiyaha hay'adda taakulo waxaanu kaloo markaati kacaynaa inaynu soo gaarsiiyay agaasimaha xafiiska hay'adda taakulo deeqdii ay soo bixisay hay'adda taakulo Somaliland Danish Islami oo ay beerweeso noogu keentay goobaha beerweeso garabcad xamilka galyaga ceelafweyn iyo goobo badan anigoo waxaan cadeynayaa oo xukuumadda iyo u cadeynaya hay'atul islaamiya oo ay ka timi islaamiya Danish Muslim iyo taakulo iyo xukuumadda Somaliland heer degmo iyo heer gobol heer caasimad inayna soo gaadhay deeqdaasi oo aanu dadka siinayno waxa kale warbixin ka bixinaya inay dadkii sanadka ka soo guuray Sanaag bari iyo degmooyinka badan iyo dhaxar ka yimi oo hadda ka soo jeestay galbeedka oo hilacyada raacaya ay deegaanada ku sugan yihiin 80% dadkaasina xaaladoodu ay jilicsan tahay xooluhu ka jilicsan yihiin naftoodu waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo hay'adda taakulo iyo Danish Islamiga inay gacan deeqsinimo ka geysato oo dadka reer guuraaga ay soo barakacay xoolii ay ka jiliceen wali dadoo ku joogsan iyo dadka kale ee deegaanka gacalka naafooyay inaad gacan deeqsinimo ka geysato taana waa baaq baan ugu dirayaa mahadcelin dabadeed waxaanu faraynaa si fiican oo wanaagsan oo aan musuqmaasuq lahayn ayay u soo gaarsiiyeen ilaahay baa deena maqlaya waxna nama siino aniga ima dhaqdhaqaajin anigoo afayeenka odayaasha dhaqanka beelaha bariga Somaliland caaqil mustacid waxaan u cadeynayaa inay soo gaarsiiyeen imana taabano waa taleysanta odayga waa la dhaqdhaqaajiyay waxba lama dhaqdhaqaajin horena lama dhaqdhaqaajin la dhaqdhaqaajin way aan dadkii way soo gaarsiiyeen waa loo hambalyeynaya waa ku faraxsanahay waa ka gudoonay waxa dambe ay noo keenana ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyagana ugu hambalyeynayna waana ku dooranaynaa gudoomiyaha taakulo halkan masaajidkan wuu noo keenay wax qabad horena wuu noo keenay yeelkadeeda gudoomiyaha waxaan ugu daraynaa inuu xildhibaan golaha baarlamaanka noqdo xilliga doorashada la gaaro 2020 ama 2007 bisha Abriil wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa baxda saxaafadana waa u mahadcelinayaa kuwana soo gaarsiiyay waa u mahadcelinaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan joognaa beerweyso mucaawinooyinkii aanu qaybinaynay hay'adda taakulo Somaliland community ee ay soo dhiibtay hay'adda Danish Muslim Aid ayaanu soo gaarsiinay 80 qoys 80 qoys oo abaaraha dadkii ay waxyeeleeyeen kamid ah waan soo gaarsiinay deeqdii guud ahaan 430 qoys ayaanu deegaamadan ceelafweyn hoos yimaada maanta gaarsiinay caawimooyinka beerweyso 80 qoys xamilka 100 qoys garabcad 60 qoys qalyaqa 80 qoys iyo dhanin yaxyeer 80 qoys alxamdulillah 80 qoys si wanaagsan bay u qaateen sidii ay sheegeen odaygii odayaashu dad badan oo abaaru saameeyeen ayaa deegaankan jooga oo doonaya in wax la taro insha Allah waxaan rajaynayaa in qurba joogta iyo hay'adaha kale ay wax ka qaban doonaan baahiyaha abaaraha ee jira deegaanka assalaamu calaykum iska wada maqalno horta iska soo gaadho dhamaanteen soo dhawaada kaalaya بس ولا مقلنا هور waxaynu u qaybsanaynaa siduu inoo gaadho waxaynuna marka hore sawir baa layna ka qaadan raashinka waa lagu fadhiisanayaa qofku hadduu u qaadan raashinku ku fadhiyo inuu isagu leeyahay dadka waa loo qaybinayaa raashinka markaa siduu u gaadhaa loo siinaya sidan uu hadeer u yaallo inooma gaadho oo ilaahay wayna ka badiyey sidaasaynu ku kala warqabaynaa sidaasaynu ku qaybsanaynaa dhammaan isu keena raashinka sidaa ugu fadhiista waa laydinku sawirayaa idinkoo ka raalliya weliba
وكالة عبد الجامع والله الله كان قولي وكالة دو حمدو كالة بسم الله الرحمن الرحيم maanta halkan aynu joognaa waa Dhadhin Yaxye waxaanu soo gaarsiinay raashin deeq abaaraha oo ka timi hay'adda Danish Muslimeed oo ay soo gaarsiisay hay'adda Taakula Somaliland Community deeqdu waxay ka kooban tahay 80 kiish oo bariisa 80 kiish oo daqiiqa iyo 80 caagadood oo saliida waxaanu ku wareejinay dadkii Dhadhin Yaxye ay abaaru saameeyeen marka waxaan ku soo dhameynayaa aadan guuleed oo ka mid ah odayaasha Dhadhin Yaxye سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وإن سو gaarsiiyeen raashinka isagoo ah 80 kiish oo kala wareegsan oo labada shub loo yaqaano daqiiqda iyo bariiska iyo caagadka saliida wayna soo gaarsiiyeen Allahumma ballaqtu wayna soo gaarsiiyeen si fiican bay noo soo gaarsiiyeen anna dadka waanu qaybinaynaa insha Allah sidii u gaarano waan u siinayna wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh deeqdan raashinka waanu gaarsiinaynay 5 tuulo oo hoos yimaada degmada Ceelafeyn oo kala Dhadhin Yaxye xamilka beerweyso qaliyaqac iyo garabcad maanta waxaan joognaa Dhadhin Yaxye 80kii family ayaanu guddoonsiinay oo raashinkii ku wareejinay waana dadkii abaaruhu saameeyeen insha Allah Ilaahay inuu ka soo joogiyo ayaynu rajaynaynaa dunya goobtu waa Dhadhin Yaxye hay'adda Taakula soo gaarsiisay iyo Danish Muslimeed بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد goobtu waa Dhadhin Yaxye raashinka waana la soo gaarsiiyay annana waanu guddoominay dadkana waanu qaybinaynaa insha Allah bidnillaahi karin goobtan waa Dhadhin Yaxye wassalaamu alaykum warahmatullahi sideedka kiish ee kala wareegsan wayna soo gaadhay waanu ka guddoominay hay'adda Taakula waana uga mahad celinaynaa cidii waday iyo cid soo abaaruhuna way ka dhacsan yihiin Taakuladaasuna wayna soo gaadhay tirada ali saamaynta abaarana aad ayay ugu badan tahay dalka iyo xoolaaba waxaanu ka codsanaynaa in la ka taakulayo abaaraha dhinaca raashinka dadka raashinka loo keenay way gaadhi way dadkii waa batay sidaasaan ku codsanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi sida inoo ka saameysay waa taa dad iyo xoolaba ilaah bay leeyihiin dadka raashinka idinkeena hay'adii waxaan u dhaafiyo magaalada hadee dalka u maqanay halka ilaahay wuxuu noo keeno halbaan ilaahay baan wax ka sugaynaa wixii ilaahay nooga qoraabaan ka disay raashinka idin soo hay'adii soo gaarsiisay ku mahadsannahay وين سوق سفي عم يسوق قارسين سما بسم الله الرحمن الرحيم haddaan nahay dadweynaha ku nool tuulada Dhadhin Yaxye ee degan hoosta maada degmada Ceelafeyn waxaan u mahad celinaynaa hay'adda Taakula inay soo gaarsiisay caawimadan raashinka ah
wadartan dadku sida ugu fadhiyaan sida loogu qaybiyay iyo maxaan ku raahday sida ma sha Allah deegaankan abarta waxay u saameysay wallahi ilaahay waa ka soo furan kara abaaraha ka jiray laakiin aad buu baahan yihiin waxaynu u baahan yihiin wixii kale soo gaarsiin kara caawimo noocan oo kala tan si fiican loo soo gaarsiiyay ma noo mahadnaqaynaa waxaanu noo mahadnaqaynaa Danish Muslim ilaahay ka khayr mariyo aad waxaan ugu mahadcelinahay hay'adda taakule raashinkan si degdeg ah soo gaarsiisay aad ugu mahadcelinahay deegaankan oo abaar aad xoog looga jirtay si gargaar ah degdeg ah ila soo gaaray كل حاسس عليه goobtan aynu joognaa waa Garabcad oo ka tirsan degmada Ceelafweyn maanta waxaan soo gaarsiinay deeq mucaawino ah oo ka timi hay'adda Danish Muslim haddana nahay hay'adda taakula Somaliland Community deeqdii caawimada ahayd way soo gaadhay 6 reer ayaa noo qaybinay oo ka mid ah dadkii abaaruhu saameeyeen degmada Garabcad abaaro aad u daran baa ka jira degmada iyo eriyadan oo xoolihii qaar badan baa dhintay kuwii lagu dhaansanayay kuwii la manfaacsanayayba marka insha Allah waxaan ay ka codsanayaan dadka islaamka in aanu sidaa noo caawino kale ayaguna uga soo gaadhaan oo caawiyaan waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha Garabcad Cabdi Xaaji Maxamed waa salaamantiin hay'adda adkaliya raashiyaad noo keenteen inta badan ku soo dhibaatooteen marka hore ku salaamantiin ka bacdi oo gudoomiyaha Garabcada Cabdi Maxamed abaar ballaaran dalka inay ka dhacday roobna hadii kale wax yar mooyaan aan ka diin dadku xooluhu ay aad u jeceen oo hadii kale yeeliyaadiba dhibaatadu aad ugu badan tahay kuwa hadii haatan keenana aan ku mahadinayno hay'adda hadii kale aad baan u mahadinayna hay'adda taakulo iyo Danish aad baan ugu taakulayna 6 qoys raashinkoodna loo keenay si fiican aan u qaybinnay wax dhibaato ah iyo wax qoreyn aan ka iman ayaanu ku mahadinaynaa wax dhibaato aan ka jirin nabadgelyaduna taam ay tahay intaas ayaanu abaaro deegaanka soo saameeyay abaaro aad bay u saameeyeen gobol Sanaag iyo gobol Sool aad u saameeyay dad baa ka waayay hadii kale waxay ka cunaan deegaankina oo deegaanka iyaga abaartu waa ka jirta xooluhu aad bay u jilicsan yihiin xaalku waa ka jira raxmaadna kama diin wax yar oo meel lagaga ururay mooyaa Sool yar la yiraahdo Allah wax kale ka daayna ma jiraan tuulo oo ka mid ah degmada Ceelafweyn ayaa raashinkan u qaybinay oo ay ka mid yihiin xamilka Dhadhin Yaxye Beerweyso Garabcad iyo Qalyaqan 500 ku dhawaad qoys ayaanu siinay raashinka oo abaaruhu saameeyeen 430 qoys oo ay ku dambeysay Garabcad insha Allah muslimiinta kalena waxaan rajaynaynaa in ay soo caawiyaan dhammaan dadka abaaruhu saameeyeen meel kasta ku sugan yihiin
taakula iyo daash eed baan ka gudoominay iyadoo ay ka jiraan abaaro aad u baahan iyo xaalfiyo iyo waxyaabo xoolo aad u jilceen qaarna ay badbateen oo ay wax gaadheen aad u bateenba way socdeen intii kalena aan haysan waxa dir wax doogay wax raxmaad midna aan haysan ku mahadsan yihiin hay'adaha soo taakuleeyay iyo kuwa kale ee soo adeeyaaba aad baan ugu mahadinaynaa tuulada garabcad halkan waa tuulada garabcad waxa la soo gaashay deeq dhan 60 qoys baa la soo gaashay raashinkan 60 kiis iyo saliidoodii waanu ka gudoominay hay'adda taakulo iyo daanteedo iska taabtay marka waa ku bahadayna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin alla mid ay la siman oo kale waxaanu ka codsanaynaa inay sidaas oo kale noo soo gaarsiiyaan waxay kari karaan dadkooda iyo qodobka joogta halka joogeen dalka u dhaatay kuwa kaleeba ee muslimiinta waxaan soo gaarsiiyaan deeq waxay soo gaarsiin karaan tari karaan hay'adda taakulo baan u mahad celinayna iyo daash ismail islaami dadka kale muslimiinta maxaa ka codsanaysaa waxaan tahay waxaan mahad celinayna hay'adda taakulo bay mahadsan tahay raashin bayna soo gaarsiisay waa mahadsan tahay waxaan uga baahanahay nabadgelyo bixinaynaa dad wanaagsan baan nahay deegaan wanaagsan abaar baan soo maray caafimaad daro dad iyo dunyaba marka waxaan u baahanahay in la taakuleeyo